waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda. gabadhan ilmeyga xaaskooda ilmeyga hooyadood ah aad iyo aad qof ka ciyaal jeclahay waa yaryahay. waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waalidka iyo barnaamijkan inay ka hadlaan oo ummadda u cadeeyaan iyo barnaamijkan marna ma isku dayaan mise waa su-aal aad iyo aad u fiican. shalayaan hooyadeed aabaheed walaalaheed kulli aan halkool isla wada galnay. taas runtii waa isku canaan shalay in gabadha laga sidii la moodo macnaha qof walba oo goonidiisa uga xanaaqay. waa gartay qofii inta la moodo qof walba ma waxaas soo biday oo ka wada xanaaqna kulligan. waa gartay inay shalay qalad ahayd kulligan waa iswada tusnay. haye in gabadha garabkeeda la istaagana ku tashana shalay. haye ana cabdisalaan saaka hadlo bilaabay. waa gartay إلى كلنا إن شاء الله واسوهاد الدونان وحارجيها إن شاء الله عن آدي أدور رجيها معنا إن كمال فمل كيسي يفمل قبرده هو ذا شراء سببتها كمال فمل كيسي بيس هو يديس كل ضد وحن رالك أهماها آدي أترالك أهماها وأنا أشجع إني كان وحبك مغلوعي إن أيوة وذا شراء أيوة وذا شراء فمل كيس يفمل كيدو إن شاء الله كليب أنا صديق الدوان المرة ورجيها بإذن الله الكريم. هدي إلى هاي. تاسم برشة. ومد الصومالية الله عم. تي قدام بيدنا إن تاسو بنا بلنا إن شاء الله. هدي إلى هاي. مركي كمال فمل كيسي كيدي سلسلة فردستان وحنا بادل هنا الشيغان هذا الصومالي وحش الشيء إذا القرب مرك. كمالو هو إذا محلها هو إذا واي قبرت ناكت أنا لجوكتيد. أنا وين. مركز وحيد هاي. ها عرضها. marka fiidiyoosha waxaan hooyada ka duubta meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin. marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka anaa qabo anaa aqaano beentan iga jooji beena sheegaysa maxaa dhaha been ma sheegayo qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaal leedahay. marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin. marka xada hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qof aa barato waay. hooyadeena way tahay hooyada markay tahayna ana og hooyadeena tahay. maxaa lahaa baviisyaal badanna waa haya. cadaymo badan. marka way blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana block u saaray. saaxiibayaal halkan waa Xamar Cadda TV muuqaal kale ayaan idin haynaa. arrimaha Kamaal Cabdul iyo Hani ayaa waxa ka soo kordhaya hadallo kale oo la xiriirta in Kamaal Cabdul uu sixray inanta lagu magacaabo Hani oo maalmihii ugu dambeeyaba ay ku wada sugnaayeen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Hani waxa ay ka soo socdaashay dhinaca Sweden laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku sugnayd magaalada Istanbul. haddaba waxa soo hadlay oo muuqaalo laga soo duubay ilmaha ay dhashay Hani iyo waliba xaajigeeda. haddaba mid ka mid ah caruurta ay dhashay Hani ayaa waxa ay tiri waxaan la hadlay oo aan la sheekaystay Kamaal waxa uu yiri Hani kuma aysan dhalin. waxa uu sameeyay inuu bloggareeyo waliba meelihii aan kala xiriiri jiray inuu blog saaro waliba isagoo dhahaya been baad ii sheegaysaa Hani ma aysan ku dhalin. haddaba ninka qaba Hani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay sixran tahay inanta lagu magacaabo Hani. waxa uu sheegay in Hani ay ahayd qof ilmaha aad u jecel laakiin hadda waxa ay maraysaa inay tiraahdo caruur ma aanan dhalin. haddaba waxa uu arrinkaasi ku tilmaamay in Hani la sixray isla markaana loo tagay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. waxa uu tusaale u soo qaatay in Kamaal Cabdul maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Afgooye. waxa uu sidoo kale sheegay in caruurta ay dhashay ilaa hadda ay baadigoobayaan oo ay sugayaan hooyadooda Hani. haddaba waxa uu sidoo kale sheegay in aabaha dhalay Kamaal uu arrimahaasi wax badan kala socdo. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد السلام علي حاش. waan gartay waxaan rabnaa bal barnaamijkii dhacay oo ninkan Kamaal Cabdul gabar baa muuqaal kula jirta aabihiis baa soo hadlay hooyadiisa hadashay gabadhaada Najmo ayuu la hadlay adiga waa wada hadasheen odayga sababta ku kaliftay inuu muuqaal soo duubo waxaasoo dhan bal barnaamijka noo dhexgal oo noo sheekay anoon ka dhexgalin oo ka gogoynin. waa maasanta Cimraan غيرت لنا وبد السلام يا لمانتود. magacaygu waa Cabdisalaam
waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda. hani muumin maxamed waxaan isqabnay muddo 25 sano ah. waa gartay. waxaan isku dhalnay 8 caruur, 3 waa dhimatay laakiin 5 aan nool hadda. ما شاء الله. الحمد لله. واقف. هاني وقبر ولا شيء المهيجة هو يدوده السبب أنا وهايو آد هو ينتقي من لا ذا قيمة له. عيال كذا تشعل. أهلك تشعل. أي هاي شفتي. واقف. هذا مدة لقيت شو السنة يا وحير. أما لا بس أنا كدوات قبل استبدل أيا كدعي. هاي. واحد مدة وإحنا صار قلين. وحب الله وذا حناق بدن. دتك يعني معناها شرطه. واقف. الكبدان أنا يسلها لنا يسوي حب انترس كريم. عيال كنفت قاعد إنه حاجة إسا أشكون السدي هو استبدل معناها كدعي. دتك حتى الدجان كفهماني معاك كدعيري. مدك بعدي قرآن ولا ساري. مدك بعدي حاجة مال ما كمذا أو أحد تضيل عطنك بش أكتوبر مهد ما قان عن مريحة. واحد نقع ستيني أده. واقرت. إيوه. قبر ولا شيء ده. أو دكان فرانسيسكا. هاي. أو إذا اللي جلاده. iyada walaasheed miya walaasheed waa gartay halkaas xaga madax soo dajay tiri okay yanari walaasheed idil baa la yiraahdaa waxay degan tahay Faransiiska waa gartay aan gabar kale la tan degan tahay Borlanga magaalada aan degan tahay Borlanga wiilo dhashay magaalada nala jooga ama ka waqaada hadii saaxiibkii weey على كل حال فرنسيسكا ماشي أنك سوقيني إن قبل ما صباح دي وابحذي أن ماشي فرنسيسكا أنك سوقيني وحن كأرجني اسطنبول أيضا أو إن كان كمال اللي هي أو كسر دوي هايو أو اللي هي حاسكي جواي أو كليبك كل يدتك الدعوذين اسطنبول كرعي أن دتك مقالة شوقي ومدد أن يوتيوب كي وحي لقوا ذا محل عسانا marka على كل halkaas aan nooga horeysay Kamaal iyo hadalkiisa maalinkaas Istanbul gabadhii Faransiiska anaga noo aaday Istanbul la tagtay halkaas ku ogaatay halkaas aan ku ogaanay ka bacdi fiidiyodan daawanay waxaan aragnay meer afkuya ka dhacay oo 2 bilood iyo 3 bilood ka hor asna ah oo hana muumin ah oo kaadi marka macnaha meherkan ma idinku maba ogeyn maba arkin hore loo ma arkin aan kayna waxa soo dhan ma jiraan family ahaan haye markii hooyadeed aabaheed ma noolyihiin kulli wax war ka haya lama walaalaheed aabaheed kulli xamar ay joogaan haye marka meerkii markaan aragnay oo afgooyinoo ka dhac aragnay waxaan contact la sameynay oo aan raadinay si aan ugu sheegno waxaan waxa ay yihiin Kamaal aabihiis iyo ehelkiisa maadaama afgooy ay degan yihiin haye nasiib wanaag rag saaxiibada ah iska soo fariisaday oo reer afgooy ah iska fariis haye reer afgooy isla markiiba gartay Kamaal aabihiisa leela hadashay lambarkiisa leesiyo leela hadashay waa gartay oo adigana rag ku garanaya aniga rag yaqaan asiga rag yaqaan waa gartay arrinkan u sheegay Kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay dadkii dhan fajacay ku noqotay arrinkaas dhamaanteen markii hore fajacay nagu noqday markaan kliibka aragno qof walba oo yaqaan ama ehelka macnaha wuxuu noqday qof oo dismoraal ah noqday wax aan qaado weyn nal noqotay haye okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkan rabana u noqdo haye meherka marka aan fiiriyay waxa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga عمران كوا قانا أنا وقانا اسكو حافظها جرني هاي سيدا إني اسكو حافظها وهاي اسكو هاي هو قرتي ولو مدة صدّن سنة كله وأنا اسكو حافظنا أنا قلت لي يرها اسكو حافظها هاي وأنا اللي قان حافظ عند الجناء أحمد نور هاينا اللي يرى أحمد نور هاينا ها واقرت
sheekha wax meeriya dhinaciisa waxaan ka arkay axmed nuur oo fadhiya haye sheekha markuu meerka jeediyahay ana kilibkaan fiirsaday mogta waa sax sheekhu markuu meerka jeediyayo 4 waxyaalada gabadha meerkeedu ku hagaaga midaan uga dan leeyahay waxaa fadhiya weligeedii ha la yiraahdo muumin maxamed waana aabaheed waa qaanaa haye waa sodoga macnaha waa sodogay haye muumin maxamed meesha ugama jeedo ninka fadhiga marka leeyahay waa axmed nuur hayne axmed nuur aabaa oo dhiibaya gabadha haniyeed haye waa yaabnaan taasaan kula siyaabdada waxay leeyahay marka gabadha aabaheedaaba dhiibaa fadhiya haye kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo shiiqa iyo kiliibka dhan hadalku waa wada kaliir inta uu socdo haye marka axmed nuur ninka la yiraahdo ee muumin maxamed iska dhigay oo hadlaana muusigaa la saaray u fiirsada kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo okay codka axmed nuur ma la maqlaayo haye inta kale walaa shiiqa walaa qof walba waa la maqlaa ma fahan haye axmed nuurka naftigiisaan contacta la sameeyey waa axmed nuur aan aqaan hadda nambarkiisaan hayay 2017 markaan xamar tagay xataa i yimid aan is aragnay haye arrinkan dhalinyaradii kale xataa xanaaqda xaafadda ahayd waa la wacay laa kulli xaal odagii wuxuu wacay axmed nuur lala hadashiyaa layiri waa soo maha ninka hani aabaheed ha waa kan la hadal haye gabadha adiga soo nama siin astaghfirullah waxaan kaa soo hilmaamay cidda marka kamaal iyo hooyadiis iyo dadkiisa ehelkiisa axmed nuur waxay ugu tageen xamara loogu tago gabadha laga doontaba markii hore kabacda odaga inta sheekooyinka sii sheegaya odaga kamaal dhalo aad u fiican waay maasha allah waan ugu dhacdo yiri inaad yartano xamaraan tagnay gabadhaan weydiisano waana la soo siiyey annaga markaas waxaan dhahnaa meherka haddaan ree afgooyanahay wiilka gurigiisoo ka dhaca okay imaa guriga marka adin noo imaa asaga 2 noo kala noo yimi 2 cunug kale hor u soo wata marka ehelkiiba saas uga dhigaa macnaha hani ehelkeedi haye hadda hani ehelkeedu aabaheed muumin maxamed walaalkeed iyada la dhashay aad jooga xamar jooga hooyadeed makashay caliya xamar joogta markaas haye ma fiirso waa garta cidaanu xamar ee gabadha ka dooneen axmed nuur asii hooy habeedii hooyadeedna waa joogeen xaqiiqda marka la rabo waa diyaad waa intaas anigu waxaan u aamusnay oo waxaan walaacan iyo balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba macnaha xaaskayga waa maradayda oo kale waa ilmahayga hooyadood waa wax walba hadday meesha ka dhacaan mar jecel inaan ku degdega ma jecel anaa cabsalaan ahaan intii taqaana xaafaddaana deganay magaalada aan deganahana macnaha dadka jooga waa la weydii karaa may waa ku ogahay inaad ahayd anigu markii iigu kaa dambeysay gudoomiyaha xaafadda andhashbaari communityga inaa ahayd baan anigu ogaa ma aqaan hadda in laga calaa iyo kulli xaal ninka la yiraahdo kadib marka meeshii iiga wad odayga way kasoo doonteen iyo islaanta iyo wixii waa la yima kadibna way israaceenoo macnaha xaggay ugu yimaadeen isagoo 2 wiil wata waa meherka halkaas ka dhacay waa gartay meherka marka axmed nuur waxaa lala hadashiyey ninka la yiraahdo cabdixamiid oo ah kamaal aabihiis caadi ula hadlay inuu soo xabo ahayn oo been u sheegana waa arka markaas markay wada hadleen wuxuu ugu jawaab gabadha aan ku siiyey gabadhayda maba ahaynba cabdixamiidkii laftigiisii baa afcadaa lagu yirahaa haye iyadoo lala taagan yaha la yiri haye jaa cabdixamiid muumin waxaa u adaatay waxaan in wax ka jir aysa jirin haye وعبد معناها عبد الحميد وين عبد الحميد اللي marka odayga Abdul ah waxa loo xaqiijiyay oo ogaaday dhalinyarada markaas meesha joogta dhalinyaro taqaan Abd Hamidna taqaan anigana taqaan Axmed Nuurna taqaan isku xaafadeen oo ganacsi waaweyn kule afkooy laakiin markii waxaas dhacayeen iyagu goobjoog kama ahayn ma ogeyn waxaas war kama hayaan wax luqluq looga galay buu ana sheegay taas wiilasha marka Abd Hamid waa naqaanay على كل عضو مركو وحي حقيقة صدي ويصوعي ومغلوب الأرن كليبك أدى براه بالشدة قال أنا أقول واحد قلي براه بالشدة قال عبد الحميد وحي وإيصاد دري يوحي عن كوضة هذا اللي نولش شيء كميدا من المقل يعني واقرت هذا اللي إيصاد دري والله أنا ميل قلي
bahalkii lahay instagramkii lahay oo hanyaala oo la jebiyey inay ku jiraan macquula oo wixii jebiyey ay banaanka u firdhiyaan waxaan maana aniga cabdisalaan ahaana kilib ama ku saabsan ninka la yiraahdeen cabdixamiid ama la ii soo diray ama aan ku wada hadalnay 10 kilib aan ku wada hadalnay cabdixamiid aan hayaa waa gartay weliga isku mid inaan qof wixeeda aan gudbiyo ma fahanti marka adigu muuqaalka marka adigu kugu qancinayay aad iyo aad kuwa kale ugu qanciyayaan hayaa oo tiro badan oo afcad igu sheegaha way soo waca wuxuu yiri markii cabdisalaam ha arrinkan waa noo cadaaday annagana waa nagu dhacday adigana waa kugu dhacday beenana loo sheegay waxa ila socda sheekhi gabadha mehriyay oo adaga koofida wata meesha fadhiya cabdisalaam sheekh cabdisalaam asna la dhahay sheekh cabdisalaam iyo aniguba hadda waxaan wici rabnaa kamaal waxaan u sheegi rabnaa in waxaan wax ka jira aysan jirin maadaama anagu waalidka aan xaqiiqsanay waa gartay waa waceen waa la hadleen markay la hadleen kabacdi haddana igu soo celiyeen labadoodii waa u sheegnay dhaheen wiilkii waa naga qabta taleefanka in meherkan waxba ka jirin sheekh cabdisalaam xataa dhagihiisa ku dhibciyey waana loo sheegay waana naga yeela wiilkeenna wixii youtube-ka ku jirana oo meherkaas iyo wixii kala ahba waxba kama jiraan ka saaraan yiri waa uuna ka saaraa yiri intaas uu sheegay cabdixamiid iyo sheekh oo agtiisa taagan oo asna markiisa ila hadlay waa gartay intaas markay dhacday kamaal inta daawataa taqaano habeenimo ka saaray wixii clip meeshaas ku jiray ha waa laga wada saaray Istanbul soo dhaweyntahay kii meherkii wixii ka sii qaaqaatay mooga laakiin asaga kanaalkiisa automatically waa ka saaray waa gartay halkaas horta baashi oo meherka waa meherka markaan usoo noqdo meherka halkaas horta ku dhamaaday xaaladiisa waa gartay cabdixamiid waa nin aada u fiican abti kale asna jooga ehelka cabdi ninka la yiraahdo kamaal si fiican aan contact u leena waa gartay odaga abtigiisa maraykanka jooga abtigiis kale oo norwaydan jooga kulli waa dad macnaha ma sha Allah aad iyo aad xaqiiqada qofka bani'aadanka macnaha lama dhaawano qaalada la sameeyo waxa la sameeyo dadka la soo wada raacay waa sax ehel wuxuu ka soo jeeda aad aniga u fiican aan dhigi kara inta aan la hadlan ka arkay aad iyo aad contactaan wada lahayn wada xiriiri jirnay kaliibkan hadda uu soo dhigo oo wiilkayga yar wiilkaaga yar uu soo dhigo meesha sakariya kaalaab kaliibkan hadda uu soo dhigay oo soo dhigay cabdixamiid contact fiican aan leenahay hal mar geeskayga waxay soo istaagay raallah hal mar wax yar laabis ما gabadh yartaa kaar hal mar si kaar bay rabtaa inta muuqaal iska tag marka uu soo dhigay 4 su'aalood waa wax macnaha عجل wuxuu ka mid yahay ma aabaheeda wax ka rabtaa gabadha bas la hadal waa gartay kilibkan hadda soo dhigay kilibku uu leeyahay miyaa inuu saar mar raba soo cunuga oo wajigiisa bomba la saaro oo caadi soo galiyo wallahi cunuga wajigiisa bomba la saaray oo ma ku jira YouTube ma uu daaray laakiin sawir ahaan uu soo galish haye kaasoo wuxuu ku dul qoray awowe ya waxaan hilmaamin kan oo ku dul qoray وسكريه أنا يقول هنشبه محمد مركب عنك ربع ما أنا يقول هنشبه معناها يقول كان هاي عمل محوك هيا مركب مقالك هيا مقال كاس أمر بالشدة مركانو عدي هي مقال كاس ويلكي قال قد دوبي وحا دوبي قف أنا قانو كمال يقان شعب كون يقانو وهو يدي وأساس واقرت وحا كمتها gabadhaanu markaan ogaano macnaha ehelkii iyo meel walbaba in gabadhaani sixran tahay oo sixir hayo in sixir hayo meesha nooga caddaatay kilibkaas hortahay waa gartay kilibka 4 su'aalood aa la weydiiyaa wiilka afartaba waa uu ka jawaabaa laakiin isagu wuxuu yidhi aabihiisaa ka duubay aabihiis aa ka duubay oo nin cunugiisa kilib ka duubaya sheeko aan ka maqlay ma fahant waa gartay laakiin bulshada sheegaysa qofka kliibka duubay in aabiis duubay
iyo in qof kala duubay qofka su'aalaha weydiinaya soo lama arko ma qofkaas ka duubay mise qof aan ma joogin waa wuxuu ka mid yahay muuqaalkaas gabadhan inuu sixran ninkan waxyaalaha caddeeyahay ka mid haye haddii uu rag yahay haye kilibkaas ha daaro ummadana ha tus waaya kilibka anigu horta waa arkay kilibka waxa weeye waa kilib cod ah oo maxaan kuu ahay hooyadaa meeday cunuga su-aalo noocaas oo kale la weydiinayo wey oo la yaab leh dadka ha u daaro marka dadka ha u daaro sababta saas u leeyahay gabadhan gabar sixran waay runta markii la rabo xaqiiqdan la rabo sababta waxyaalaha ay ku kacaysa ma oga waa gartay marka ay soo bixiyeen ma oga gabadhan ilmeyga xaaskooda ilmeyga hooyadood ah aad iyo aad qof ka ciyaal jeclaa waa yaryahay dunida si ciyaalkeedu jecleed maantana waxay mare ciyaal ma dhalin inay dhahdo ma oga macnaha inay dhahayso hooyadeed aa soo wacday taleefonkan ma aqaanay tiri waa hooyadeed ayada dhashay marka qofkan ficilada uu sameehayo marka aragnay waxaa noo cadaatay qofkan qof sixran oo wax uu sameeyahay inaysa ogeyn ah muuqaal baa jira aniga nin ii soo diray muuqaalkaas ninku ii soo diray waa iyada oo waxay leedahay anigu ilmo ma dhalin waxay u waday baan u malaynayaa markaas inay cabdul u waday baan u malaynayaa muuqaalkaas inaa aragtay in kale maqaan muuqaal noocaas oo ay leedahay anigu ilmo ma dhalin oo keligeed ah oo hadlayso oo aan wax ay video ah aan ahayne muuqaal mobile saa loogu duubay ah soo gaaray muuqaalka ma arag kulle waxay loo diray cabdulxamiid loo diray kulle wuxuu waa isoo wada diriyey waxaan ku leeyahay gabadhan ciyaalkii inay dhashay xataa ma oga hadda waa inkiraysaa inay maamo sharaf leh oo 5 ciyaal joogto oo ciyaal waaweyn u joogaan oo yaryar u joogo oo 23 jir ugu yahay 6 jir yar yahay u joogo ma oga maantali ma oga waa qof jug gaarto way hooyadeed ay inkireen aabaheeda inkiraysaa marka qof saas normal ma dhihi karo waxa ay sheegayana macnaha ma aha waxay ogtahay ma xaqiiqda marka la rabo famil ahaan iyo dad ahaan kulli waa tashan gabadha in quraan la saaro insha Allah biidnillaahi alkariim waa lagu tashaday in ayada bal markaan lagu dadaala lagu tashaday in daawadeeda iyo waxeeda laga qayb qaataa lagu tashaday ninkan ujeed kale oo gabadhan ka leeyahay oo aan ahayn inuu ku shaqeysto waxay ogtahay mala gabadhan inuu inta meesha marba soo fadhiisiyo hadal oo yiraahdo ma gabar aan ciyaalkeeda aan ka warqan inkirayso aan ogeyn xasuusnayn inkir macnaha ma ka wada macnaha ma xasuusna aabaheed ma xasuusna hooyadeed ma xasuusna waxaan kamaal hayn ma maqasho cabdisalaanow waxaa kaloo jirtay cod isoo gaaray baa jiray oo codkaas wuxuu ka yimi kamaalkan hooyadiis waxaana loo soo diray dhinacaan waxa fadhida kaamarada inaan ku qabano ma rabno laakiin waxa fadhida najmo oo gabadhaadiya najmo hani baa kuu dhashay sooma waa gabadha curadeyda haye goormay gabadhaan dhalatay ta ahaan haddaan ku weydiiyey wallaahi 98 hani baa kuu dhashay marka waa gabadheed curadka waay waa gabadheed curad ahayd okay marka gabadhan muuqaalka codkaas yaa loo soo diray kan kamaal hooyadii codka kamaal hooyadii ay leedahay hooyadaa la hadal ha naga qaado wiilkayga ha ka qaado muuqaalkiisa horta kamaal hooyadiis iyo ehelkuba contacti anigii najmina lahaayeen labadeena waliba kamaal hooyadiis badanaa najmay ay la xiriiri jirtay oo kilibka hadda cunuga laga duubabo anagu ma ogeyn afgooyaa loo diray waxa soo diray waa oo najmo usoo diray waa kamaal hooyadiis waa gartay ma fahantay codkan ay leedahay nagacishta macnaha youtube-ka waxaa u saaran sawirkiisa oo facebook whatsappka waxaa soo usoo dirtay najmo ii sheegeen hooyadiis kamaal hooyadiis marka najmo waxay u dirtay hooye u dirtay hooyadeeda u dirtay wixii macnaha suuqa lagu daadiyey oo instagramka laga daldalay allahu yaclam qof jabshi inuu isugu jabiyo xataa allahu yaclam ma sheegi karna inuu kuma dambaabi karo waa gartay waxaasuu galay laakiin waxaa loo soo diray ugu horreeyey najmo aabiya yaa kuu soo diraaday
كمان هيدس كونتاكت كلام لنا ولي ماي markii oo videosha oo la soo dhigay ha Instagram markaas soo wacday loo mar كمان هيدس ku soo wacday marka kمان هيدس waa contact waa la sameeyay gabadha markaas ku soo wacday oo ku soo dirtay muuqaalka iyo codad kale waxay ku soo dirtay ما يعقب يصدرين ويسوي عليه من أنت الهوري وتكيد وحامش وكجرا حدا هوري وتكاد ما قال مش وحقليه لكن أكو في الكلام مركز حتى هوري وقتوجا هو إذا أنا بعيشه أما كحدا هو إذا قالت كلام مسكلو بيل كان حتى قالت كولي هاي هذا قفنا أيكو إسقى سل جوكان لكن هالقف على سنة قالتك كمان قالت كولي هاي وحنا أنا لحد لا مر واتساب وحلا ودوي وحنا وشادي ويقولوا ما يسوى رنت مركي ويلقى مرة رنت وشاكتي ومديدة هو إذا قاعدين مركز تهلا اليوم هذه ما يلا هذا كمان ها كمان مرة أنا لهذا كول أنت مركز واحدنا وقاعدين هي ما كنتري محاجة هاي ميكروفونك واحد موجود وين كمان قاعد خلاص محلا كمالو هويدا محلها هويدي واي قبرت naagtan ala joogtid anana weyn markaas wuxuu dhahay ha marka videosha waxaan hooyada ka duubtay meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxallaha ani qofka ana qabo ana aqaano beentan iga jooji beena shiigusa maxaa dhaa beema sheegoye qof oo kusoo wici karto meeqa qofa kuusoo qorto ku dhahday naagta waa naqaanaa ciyaala leedahay marka waxay dhahay maxaa lahaa qofka kusoo diray aabaha kusoo diray waa ogahay hanina ma ku dhalin marka xadaa hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qofaa barato waayo hooyadeyna way tahay hooyadey markay tahayna anaa og hooyadeyna tahay maxaa lahaa baviisyaal badanna waa hayaa cadaymo badan marka waa blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana block isaare ha block isaare waxay dhahay aabaha duqa u sheeg inuu waxaan dhan inay dhinaciisa ka socoto waa ogahay beentan iga joojiya adiga inuu cabsalaan aabaha yahay wuu ogyahay laakiin wuxuu inkirsan yahay in ay hooyada tahay ha horta gabadhan ehelay leedahay daday leedahay haye waa la iskala xisaabtama xaqiiqo way taas la isku daymayo waa wax lagu wada xisaabtami doono ama maanta aad ama berri aad saameynta ay yeelatana asaga mas'uul ka noqonayo caruurta contact ma la leedahay hadda maya ayagu hadday waan waa ka qabahe inta markay joogto ayagu hadday waan waa ka qabahe hooyo caadi waay waa hooyo waa dhahe haye markii la hadlaan hooyo waa dhahe xalay waxaan arkayay in iyadoo soo baxday oo diyaarad soo raacaysa camal inta hadda timi wax xiriir ma la samaysa abti maya aba ma la shadi okay maya ana ma hadlo adiga hadda la hadashid maxay ku oranaysaa wallahi ana haddaan la hadlo waxa ku saabsan YouTube-ka iyo Kamaal haddana kala hadlan caadi ila sheekaysay laakiin baabkaas haddaan soo qaado macnaha dhag waa loo kacaabo qof qataaran waa meel ku qataaranta واقف عيالك واحد سوق عيالك ساو سمي هدانت التليفون ان كو عدو waa yeeli gabadhaas hay laakiin hadaan ku soo qaado baab kambo habarteeda kat gabadheeda haday ku soo qaado baabkaas bas waay marka baabkaas kala maxay ku dhahdaa ma gal waa dhibi macnaha wax dhibay waxa ka dareemay inay dhibaysa ka dareemay ma fahant marka dadkan YouTube-ka ka hadla waxaan dheelaa waxa sheegayaan iska hubiya waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waalidka iyo barnaamijkan inay ka hadlaan oo ummadda u cadeeyaan iyo barnaamijkan marna ma isku dayaan mise waa su'aal aad iyo aad u fiican shalayahan hooyadeed aabaheed walaalaheed kulli aan halkool isla wada galnay taas runtii waa isku canaan shalay gabadha laga sidii la moodo macnaha qof walba oo goonidiisa uga xanaaqay waa gartay qofii inta la moodo qof walba ma waxaas soo biday oo ka wada xanaaqna kulligan waa gartay inay shalay qalad ahayd kulligan waa iswada tusin haye in gabadha garabkeeda la istaagana ku tashana shalay haye ana cabsalaana saaka hadlo bilaabay waa gartay kale insha Allah waa soo hadli doonaan waxaan rajeeyaa insha Allah aan aad iyo aad u rajeeyaa macnaha in Kamaal familkiisi
iyo familka gabadha oo wada jira sababta kamaal familkiisa aabihiis hooyadiis kulli dad waxaan raalli ka ah maaha aad iyo aad raalli kama ah waana u sheegay ninkaana waxba ka maqli waayay in ayagoo wada jira familkiisa iyo familkeedu insha Allah kaliya ina soo dhigi doonaan mar dhow rajiha bidnillah al-karim hadii ilaahay taasan bulshada ummadda Soomaaliyeed loo tii ugu dambeydana inaan taas soo binaabalana insha Allah hadii ilaahay markii kamaal familkiisi iyo keedii isla soo fadhiistaan waxaanay baadil yihiin ay sheegaan hadda Soomaaliya waxay sheegayaan laga rabaa marka taasna waa bal inaan soo binaabalna xamar cadda TV aad naga daawanaysan saaxiibayaal haddaad inagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad hore inoola joogtona madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin tale iyo tusaale haddaad inoo haysana qaybta comment inoogu reeb waan idin aqrin doonaa waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed Xaaji Ducooyde leh muuqaalkan kiis xigeentan ku kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo